أنا واحد أوران كرا تاني ومصيبة وسويتي قرن كصوماليا ومدى الصومالية مالك الشلي أي هايد حلقي مدحوينها جمهورية دا قوب فقارا وكفض وضي إني عادي تهي إنو سوق ماسوق لقادن كرو إساقا ييري هسا أهاتي تاسي waxay dhalisay maanta mid kamid ah wiilashiisa inuu kaxeeso gawaari tiknika ah dabadeedna suuqyada muqdisho tago ama gobolka banaadir weydiistana lacaga baad ah sharci darro ah oo laaluush ah oo aan marnaba meel uga xusnayn qaanuunka dhaqaale aruurinta maaliyadda dalka sidii u socday awaamir ayuu dulligay lacaga ayuuna ka rabaa dadka ganacsatada ah iyo ganacsigaba inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dal madaxdiisii uu fadwootay in dabcan shaqaalihii dawladda hoosena taa ku dhaqaaqaan wax la yaab leh maahan wax soo socda ka weyn dabcan waxba qabyo ah baa la dhisayaa ma garan karo marka ugu horeyso soo dhawaada saaxiibada la wadaaga oo sheer gareeya inaana soo raacdaan isku daya aragtidiina inoo reeba marka ugu horeyso horta madaxweynuhu muuqaalku uu ku fadwooday aynu isdul taagno بعد فاكت madaxweynihiinii geelaaga ka mid noqotaa soo maahay hadda khidmad la iska soo qaadanayay oo muddo la soo qaaday anigu hadda khidmadda in la qaato waa mushkil anigu uma arko laakiin shaqadeedii in la qabto waa mushkil madaxweynaha jamhuuriyadda maalnimadii shalay dabcan kulankii ama daafurkii wasaaraddu ka hadlay ku sheegay arrinka dadku siyaabo kala duwan ay u fahmeen laakiin madaxweynaha afkiisa inuu soo dafay oo uu musuqa ka hadlayay ereyga inuu isticmaalo wax tuhuna ma gelinayso sida uu kala jeeday inay tahay inay caadi tahay waayahay aan dhagaysana marka dhinkan warbaahinta soo watay ee lacagaha dheeriga ama laaluushka ay weydiinaya ganacsiyada maamulka gobolka banaadir ayna hirgeliyaan bixinta canshuurtaasi bilaha ah iyo sidoo kale sameynta shatiyada ganacsi loogu talagalay kormeerka kadib oo saacado qaatay waxa uu agaasimaha la hadlay warbaahinta in dhaqaalihii hoos u dhac iyo waxaas ay ku yimaadeen annagoo taas ka duulayno ayaa waxaan soo kormeernay dhammaan suuqyadaas iyaga ah waxaana soo bixinay awaamiir laga dhaxli doona dhibaatooyin haddii lacagaha dawladda hoose ee soo gala ama laga qabta suuqyada iyo dhammaan meelahaas iyaga ah oo dhan in dhibaato dadka ay ka wajihi doonaan saraakiisha waa tahay ninkani waa agaasimaha dakliyada gobolka banaadir tiknika ayuu kaxeystay kaamirada ayuu kaxeystay suuqyada kala duwan magaaladuu tagay lacaga ayuu kasoo qaaday goobo kala duwan awaamirna waa siin ayuu yiri oo ay ka mid tahay dukaan kasta ama ganacsi kasta ay bishii $10 inay bixiyaan ganacsi kasta $10 inay bixiyaan asigoo shakhsi oo socdo oo shaati wato ayuu go'aankaas soo gaaray dadkii ayuu ku amray haddaba su-aasha aan isweydiinayno waxa waaye horta waddankan canshuur ma la qaadaa haa canshuur ma lasoo kordhin karaa haa haddii lasoo kordhinayaa soo kordhin karaa simple question taas ayaa ah midda aan doonayno inaan fahmno isla garano marka ugu horeyso horta haddaan isdul taagno waddankan wuxuu leeyahay xeer maaliyadeed ee canshuuraha lagu ururiyo wasaaradda maaliyadda ayaa dejisay wasaaradda maaliyaddu waxay qaadaa canshuur sidoo kaleeto gobolka banaadirna waxa uu qaadaa canshuur intuu waxay ku baxaan xeer oo ay wasaaradda maaliyaddu ogsoon tahay qofka muwaadinka ee Soomaaliyeed ganacsiga muwaadinka Soomaaliyeed $1 lagama qaadi karo xataa madaxweynuhu intuu soo istaagay lacagtaas bixi ma dhihi karo waxay u baahan tahay xeer iyo nidaam iyo qaanuun ee wasaaraddu soo dejisay oo baarlamaanku ansixiyay ayaa lagu qaadi karaa $0.5 haddii laga qaadayo muwaadiniinta Soomaaliyeed basaska haddii lacagta lagu raacayo oo uu jeclaysto ninka baska iskale 10 in lagu raaco lagama yeelayo qofka muwaadinkaana hal baa ku raacaya lagama yeelayo wasaaraddu waa inay siyaasad dejisaa waxa lagu raaci karo oo bulshada ka go'ay inay qiyaastaa kilometerka inay qiyaastaa jaangoynta lacagta lagu raacayo baska dawladda ayaa go'aaminaysa simple way fududahay sharciga iyo xeerka maaliyadda ee dalka waxa looga qaadayo dadka waxa iskale oo dejiya wasaaradda maaliyadda labo wasaaradda maaliyadda ama dawladdu canshuur ma ka qaadaa ganacsiyada iyo guryaha haa ganacsiga waxa laga qaadaa lacagta canshuurta ah ee iibka iyo midda ma aragtay dekada uu kasoo dejiyo sidoo kale ganacsadaha waxa laga qaadaa guriga uu degan yahay canshuur taa hore wasaaradda ayaa qaada canshuurta guriga lacagta kirada uu ku degan yahay dul saaran ee milkiilaha guriga loo saaro ee uu bixiyo
waxaa qaata sanadkiiba mar gobolka banaadir dowladda hoose sanadkiiba mar wasaaradda maaliyadda 6% 5% ma garanayo lacagahaas in la qaado oo canshuuraha guryaha ah gobolka iyo wasaaradda maaliyadda ay kala qaadaan waa xeer wasaaradda maaliyadda ay soo dejisay oo dhigan haddaba su-aasha aan qabo waxa waaye qof shaqaale ka ah dowladda hoose ma go-aansan karaa ama gudoomiyaha gobolka ma go-aansan karaa $10 ganacsigiiba in laga qaado ma u malaynayo dadka muwaadiniinta ah dhaqaalaha dalka hadduu hoos u dhacay iyagu in lacag adi aa ka qaadato adoo shaksi oo socdo miyuu dhaqaalaha ku kobcaya maya dhaqaalaha wuxuu ku kobcayaa in la baaro xafiisyadiina siday u shaqeeyaan iyo lacagaha meesha ay ku baxaan ilaan waa soo galaa meesha ku baxaan in la ogaado taasaa horta dhaqaalaha kobcin karta haddii ay baahi jirto dowladda waxaa u qaabilsan siyaasadda dhaqaalaha wasaaradda maaliyadda iyada ayaa laga rabaa inay dhahdo gobolka banaadir dhaqaalaha kuma filna ama dhaqaalahan dowladdii kuma filna waxaan u baahannahay inaan sidaa sameyno oo lacag noocaas aan ka qaadno caqli maaha nin anoo kaleeta adoo kaleeta ah oo aan waxba haynin oo guryo ay qabyo ka yihiin inuu yimaado dadka $10 iskaaga soo rogto meesha haddii ay dowlad ka jirto waxaa maxkamad ha la geeyo xabsina ha loo dhaadhiciyo haddii ay dowlad ka jirinne ganacsatada markastaa la baadi jiray sidaa ha loo baado isku soo wada duuba hadalkeyga waxaa leeyahay ganacsatada soomaaliyeed waxaan waa iga taqaanaan xeer maahan nidaam maahan sharci maaha laakiin dowladdiyaa dhammaad ah oo gabagaba ah waa xilligii boobka kala guurka xaalufinta muufaysiga malabsiga iyo leefleefka ah marka nin adinkoo kale ah oo ficiin ah ha ka yeelina lacagta hadda adi lagaa qaadayo agtaada dukaan uga furana beri ama hotel ay halkan uga dhisanayaan ganacsiga idinku soo ciriirinaya marka dadka ha shaqaystaan si kale ha u shaqaystaan magaca dowladda iyo sharciga dowladda yaan lagu tumanin hantida dadka muwaadiniinta ahna yaa la dhicin madaxa dalka ugu sarreysa waxaa leeyahay musuq maasuq baa ka hadashaa ma jiraa leediin tan waa musuq maasuq kii ugu weynaa waaye 1 2 madaxweynaha shalay meeshuu ka khudbadeynayay iyadaa lacagta qaada gacanteeda ku qaada wasaaradda awqaafta iyo islaamka arrimaha islaamka lacagaha khidmadaha iyadaa gacanteeda ku ururisa waa dembi waa qalad waa sharci darro madaxweyne adaana sheegay xeerka maaliyad ma waafaqsana ha geeyaan wasaaradda maaliyadda hal meel ha laga dhuuqa xataa lacagta waa yeeli karnaa laakiin meel kasta lacagta in lagu dhuuqaayo dhib ay nugu tahay waxna soo gaaraya ma laha waa mahadsantihiin tani waa mid ka mid a musuq maasuqa baahsan ee dalka ka jira ummadda ilaahay ka qabta dadkan ilaahay u barya teeda kale caqligiina iyo xooggiina ka shaqaysiiya dulmiga waa layska dulqaadaa lama dhegeysto lamana yeelo nin adoo kalena looma dullaysnaado marka inaad hadashaan gacmihiina aad dhaqaajisaan waa muhiim aragtida hoos ugu reeb aad waa mahadsantahay